marka waxaan doonaynaa inaad wax nooga sheegto noocyada beeraha ee Soomaalidu beerato noocyada ay beerato iyo waxa hadda ku soo kordhay oo hadda maadaama beeradadan iyo wax la keenay drip irrigation la keenay marka inaad ayadana dadka aad ka dhaadhiciso qaabka ay u kala duwan yihiin beerihii open field ahay iyo beerahan dadan iyo noocyadii traditional ka ahay oo hore waxaas inaad ayadana fikir naga siiso ayaan ka doonaynaa Soomaalida ku warta wax beeraha dhulna waa irrigated waa dhul waraabeed dhulna waa rainfed roobeed way labadaas ay Soomaalidu horta u beertaan ay traditional ka lahayn jireen xilligii macnaha hore ahay isticmaalayeen marka dhulna waa irrigated oo dhulkan wabiyada ay maraan waaye ama shabeelooyinka ahaada ama jubbooyinka ahaado dhulkaas marka wuxuu yahay dhul oo malkan geeday asiga nafkiisa baar dheer dhulkan uu maro ha ahaado wabigaas intuu maro areadaas marka irrigated farming way oo beerahaas waa si wabigay ka waraabaan dadna waxay ku beertaan roobka dadka aan wabiga soo gaarin roobkay ku beertaan مثلا dadka aan wabiga marin sida gobolada fogfog oo kaleeto مثلا gobolada dhaxo kaleeto مثلا jubada hoose qayb kamid oo dhulkan afmadow iyo dhulkaas korodhan ilaa iyo area Janaac Cabdalle dhulkaas oo beero waa laga beertaa laakiin beeraas ilaa Kismaayo area naftakeeda dhulkan aan ahayn rainfedka aad ayaa looga beertaa si rainfed ahaan loo beertaa badanaan waxa la tabcaa waxa u badan digirta masagada galeyda sisinta karoobkaas iyo qaraha oo kaleeto badanaa waxa way rainfedka ay ku beeraan beeraleydana inta badan kuwaas ay xooga saaraan kuwa rainfedka kuwan kale marka oo irrigated ka ah oo dhanka wabiyada ku tiirsan ayada oo large farms ka oo beeraha waaweyn oo intaas oo hektar ama intaas oo ama sida la yiraahdo asendooyin ama hectares intaas oo hektar marka beerisid marka irrigated kiya muhiim ah sababtoo karoobku mar walba wuxuu u baahan yahay biyo xogan marka dadkaas waxay ku tiirsan yihiin dhankan wabiga ku tiirsan yihiin waana qaybaha ugu xogan oo wax soo saarka dalka waaye qaybahan oo wabiga ka hela biyaha waxayna beeraan ayaga badanaa marka wax ugu badan oo marka kuwan ay ugu duwan yihiin inta hadda aan soo sheegnay waa beeraan laakiin ayaga waxa u dheer qudaarihii yar ka ahay oo very sensitive oo ah inay biyo badan helaan mar walbana biyihii ay diyaar u yihiin marka wabiga loo fiirino roobka laakiin climate-ka marna uu imaana marna ma imaan karo qudaaraha soo korta marka mostly wixii qudaar iyo vegetable iyo fruits inta badan ku saabsan waxay imaanayaan dhanka irrigated farming ka imaanayaan hadda marka wax cusub waxa waaye oo sanadahan dambe bilowday in beerihii dhankii loo guuro greenhouses-ka ama beeraha guryaha dadan in wax lagu beero waa qayb hadda mar dhow soo cusbanaatay waay in waraabkii hore la beerin jiray oo faarowga iyo service irrigation ka ahaa beeraha la iskaga furi jirin in drip irrigation hadda la keeno oo tubooyin la keeno ayada naftirkeeda waa qaab horumar ah oo hadda soo kordhay waay iyada naftirkeeda waxa waay waa un tijaabo hadda socoto waay inay guuleysatana la rajeynayo inkastoo wax ka soo baxay ay guuleysatay qayb ka mid ah dalkeenu marka ma ku haboon yahay iyo ma ku haboona waa un xaalad kale laakiin ayada hadda waa la beertaa xogaana waxaan moodaa in production xogan ay ka soo baxaan oo dhanka waliba qudaarta aan u adkeysan karin cimilada isbedelka cimilada aan u adkeysan karin cudurrada kaleeto insects kaleeto ku very sensitive ku yahay oo aad ugu daran yahay inuu dilo ayada lagu baabay maadaama optimal temperature uu ka jiro greenhouse-ka oo kooban aad baad u mahadsantahay marka waa maxay caqabadaha haysta beeraleyda yar maadaama dadka Soomaalida ay beeraleydoodu u badan yihiin beeraley yar caqabadaha haysta oo u baahan yihiin in laga kabo ama laga qaado waa caqabadaha dadka beeraleyda small scale farmers ka haysto beeraleyda yararka caqabadaha haysto run ahaantii beer markaad soo qaadid agriculture waa sector muhiim ah aan dawladna ka marmin dadkii marka waa dad aan dhaqaaleysan waa dad noloshoodii caadiga ah nolol maalmeedkii la dagaalamayo dadka ugu badan oo beeraleyda oo beeraha tabcado oo ama irrigated ka jooga ama rainfed ka jooga dhulkan waraabka leh ama dhulkii roobka lagu beero dadka jooga waa dad masaakiin ah oo inta badan iska jilicsan dadkaas marka dhibaatooyinkii qabaan waxa ka mid ah
kow horta dalkii waa burburay seed oo tayaysan oo quality leh ma jiro ugu yaraan seed waxa la isticmaalayaa 30 sano wax ka badan productionkiisa marka seedkaasi aad u yaraana sababtoo ah mar walba dunida seedku waxa lagu sameeyaa ama wax la yiraahdo iniinta waxa lagu sameeyaa horumar lagu sameeyaa iniinta inintaas marka horumar hadaan lagu sameeynin de waxa ku dhacay mar walba productionkeedii waa sii nusqaamaya cudurradeedina waa badanayaan maadaama koobkan mar walba la beerayo properly climate-keedana mar walba isbedelayo hadana ka hortag sax oo maaragtay oo loo sameeynin dadkii aqoontoodii oo aad u liidata de dadkan wuxuu u baahan yahay in la kabo wadad masaakiin xoogaa defarta nafaqooyinkii oo kaleeto sumihii oo kaleeto wax la yiraahdo marmarka qaarkood aqoon ahaan geedkaani inuu u baahan yahay dhulkii inay nafaqada ka dhamaanaysa tama yaqaanaan geed halka roob ay isaga wadaan dhulkii dhan wuxuu noqday dhul gawaana oo wax badan ka bixaynin geedkii waxa arkaysa isagiyo maaragtay oo yar intaan leeg inuu mireys ka dhalayo ama qalalayo marka dadkii xagga aqoontana way hooseeyaan wixii de ku riixi lahaa in beerihii beeraana way ku yar tahay oo taakuleen sax ma haystaan marka wuxuu ku jiraan xaalad ku noolaada kama maarataan ku jiraan ma ogiye waa dad u baahan in laga saacido waxyaabaha saaciidada u baahan sida abuurada nafaqooyinka waxyaabaha abuurkooda maadaama abuurka aan sheegnay inuu abuurkaanu muddo la soo isticmaalay oo hadana quality-giisa iska yar yahay hadana hadii oo wix yaraa uu u baahnaa la siin waayo wax uu soo saari karto waa gara kartaa marka caqabadaas guud haysato dadkii beeraleyda marka manteel ahaan oo yar ka ahay waxa moodaa in ay beerihii iska dhaafeen hadda kaba tageen oo qaabab kala duwan oo hadda aan ay ugu tageen oo dhibaatooyinkaas ay kamid yihiin ayna u shaqeeyaan iyagoo beera leh ay ku qasabtay dad kale oo beera waaweyn leh oo ganacsataa oo jeebkeeda qoyan yahay inay ugu shaqeeyaan wax la yiraahdo kala goys oo ah in qofkaanu beertan uu ka shaqeeyo uu waraabiyo uu falo wixii kale qarashaadeen uu bixiyo ninkii meesha lahay kana wixii xooga uu galiyo kadibna wixii uu ku rafaaday in lala qaybsado maskiinkii marka taas waxay ku tusinaysaa marka xaalad maaragtay oo nooc kale isku bedeshay maadaama ay sidii hore ay ku noolaan waayeen sidaanay intooda badan hadda u bedesheen inay ku noodaan waa mahadsan tahay marka baahiyaha ugu sii daran oo hadda ay tahay in iminka hadaan laga hortagin ay problem zaid u imaanayo maxaa kamid ah adoo soo koobaysid problem horta haysta caqabadaha haysta ee ugu daran horta waxa kamid ah qofkan beeraleyda in la siiyo wax allaala wixii beertaas uu gelin lahaa oo qarash ah sababtoo level ku joogo waa level poverty waa faqiir soo wax badan ma haysto hadduu helo marka damaanad qaad ah in matoorkii shidaalkiisa laga bixinayo in matoorkii shidaalkiisa la siinayo oo shidaalkii biyo uu helayo nafaqadii iyo wuxuu kaga hortagi lahaa uu helayo wixii protection oo suma iyo wixii loo baahnaa uu helayo agabkii waxaan loo adeegsanayana in la siiyo inta hadii la siiyo waxa iyagu waa dad wax soo saar leh sabarna leh wax soo saar karo ma sani ma jiraan beeraley waaweyn waa jiraan laakiin se ma badno inta badan sababtoo ah dadka ganacsatada ah oo ilaahay hantida siiyay inta beeraha fahansan horta waa in yar sidaas darteed intaasna marka waxa waaye beero way tabcaan oo way sameeyaan oo way leeyihiin marka ayagana de maadaama capacity dhaqaale ay leeyihiin naftirkoodu sidii wax loo baahnaa ma soo saaraan